السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلكani waa laanta idaale oo aad kala socotaan mowjada ka gaaban efemada qaar iyo bartana ciwaankeenu yahay idaalesomali.com. dhegeystayaal barnaamijkan toddobaadkan waxaan ku faaqidi doonaa iyadoo dunida daafaheeda uu ka dilaacay cudurka coronavirus-ka. dadweynaha qaar ayaa waxaan la kaashanaynaa fariimahooda sida ay u arkaan cudurka mid ah dhalinyarada hadda halkan ku dhaqan. walaal magacaaga walaal Fuad Jaano Fuad bal iga waran bal ma maqashay cudur la yiraahdo coronavirus? haa walaal waan maqlay. bal iga waran sidee adigu ku soo gaaray sida u maqashay hadda ka warna ma maqashay cudurkan corona? walaal hadda ka hor maanan maqlin muuna isoo gaarin marka mar dhow leen maqlay cudurkan sidee kula tahay maadaama dunida inteeda badan uu ku faafay? maadaama inta badan dunidan uu ku faafay marka magaalooyin badan iyo goobo badan laga sheegayaa cudurkan marka jawi ahaanba meesha ka soo bilaabaan wadanka Shiinaha waa walaal. bas leedahay cudurkani waa mid loogu talagalay caalamka inteeda kale mise adigu waxyaabo kale ayaa ka dhacsan fikir ahaantaada? walaal horta aniga qof bini aadan ahay nin walba marka si fikrad gooni u wata marka aniga inkastoo qof bini aadan ahay waxa iga dhacsan waxa waaye marka in loogu talagalay qof muslim ah inuu cudurkan ku dhaco. bal ma dhihi kartaa hadda ereyada waxa ka dhimanaa inaad leedahay dad muslimiin ah looguma talagalin balse waxaa jira wadamo muslimiin shalayta ugu dambeysay kiiskii ugu horreeyay waxa lagu sheegay dalka Soomaaliya midaasi ayadana maxaad ka dhihi lahayd? walaal midaasi waxaan ka dhihi lahay horta qofkan waa qof oo wadamada dibadda iyo meelaha ka imaaday marka inkastoo magaalada uu soo galayay waxaa jirta qalab oo soo saarayo oo haddii qofkan oo lagu qabto wuxuu soo saaray positive hadduu soo saarna wadankiisa noo laga celini negative hadduu soo saarna waan soo dhaweysanayna qofka. bal adiga waxaa sheegaysaa qofka haddii cudurkii laga helo wadanka ku imaado in loo celinayo balse wadamada qaar waxaa arkaysaa sida Soomaaliya camal oo shalay ku dhawaaqday cudurkan markii ugu horeysay iyadoo dadkii ka yimid wadamada qaarkood la soo dhaweynayo oo lagu karantiilay mid ka mid ah magaalada Muqdisho midaas adana maxaa ka leedahay? walaal macaan waxaan ka leeyahay horta dadkan waa dad oo wax ujeeda laga wata cudurkan inkastoo ujeeda laga watana qof bini aadan oo muslim ah looguma talagalin inuu ku dhaco sababtoo ah gaalada badatay sida u maleynayo fikrad ahaanteeda waay marka nin walba fikrad ahaantiisa haduu ka hadlo sida u maleynayo oo baraha bulshada aan ka maqlay waxa waaye qof bini aadan oo muslim looguma talagalin inuu ku dhaco cudurkan. okay gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijka waxaan kusoo dhownahay gabagabo bal adigu maxaad dadweynaha Soomaalida aad ku baraarujin lahayd maadaama cudurkani dadka qaar ay sheegaan in salaan iyo waxyaabo fara badan iskaga faafiyo? walaal aniga dadka bini aadanka waxaan ku go'aamin lahay cudurkani looguma talagalin muslim inuu ku dhaco marka dadka muslimiinta niyadda ha dhistaan gabi ahaan ha iska ilaaliyaan wax walba muhiimadda waa ilaalo marka inay wax walba ka taxadiraan fiican. okay waa mahadsantahay kaasi waxa mid ka mid ah xerida Dajka Fuad Jaano cudurkan ayaa waxa uu yahay mid caalamka ku faafay marka waxaan arkayaa dhalinyaro aad u badan marka mid ka mid ah dhalinyarada ayaa hadda ku sii socda walaal magacaaga? magacayga Axmed Xaashi Daryan. Axmed ku soo dhawow idaacadda Idaale maanta waa barnaamijkii baraarujinta iyo cudurka coronavirus-ka adigu maxaad leedahay arrinkaasi? inkastoo aan maqlaa inuu ka soo bilaabo China ana hadda ahaanteydana waxaan joogaa Kenya marka wadankiina wadamada zaid ugu faafaya marka horena loo dhaamo munaafiq dadku shida muumin ku gudtaa marka arrinkan maadaama dalkii Kenya aad ku noolad naga helay cudurkan adigu maxaad is leedahay ma taxadiraysaa oo bulshada ma baraarujini oo mise waxaad is leedahay oo kaliya cudurkan waa mid loogu talagalay dadka aan ka kala muslimiinta ahayn oo kaliya kaalada ayaa loogu talagalay marinkan? maya taas ma aaminsani cudur hore loo dhaamo muumin dadku munaafiq dadku shida muumin ku gubto marka hadda Kenya ahaantayda Kenya hadda jooga iskuuladii waa la fasaxay inkastoo la sheegayo taabashada la iska qaadaya marka ani waa malihi gaal bis ku dhacay cudurkan taasana aaminsanahay marka hadda Soomaali inkastoo ani ahaantay Soomaaliya ka dhashay Soomaalina hadda hal ruux lagu sheegaya marka cudurkan waa cudur Ilaahay soo diray laakiin dadka qaarkood inkastoo dhaan reduce-na socoto dhinaca Kiristaanka oo gaalada adduunka ku badatay la yareynaya ma aaminsan taas dadka asaas leh laakiin ana ahaantayda waxaan leeyahay waa Ilaahay hadda markay caradiisa ka tambadato hore la dhamo waxa la soo dirayaa cudurro ayna ka seen ayaan soo diraynaa Ilaahay hore u dhahay marka anigana waxaan aaminsanahay hadda waa prevention hadda waa inaan kortag waa inaan suubinaa sida hadda dadka iskuuladii waa la fasaxay dhinac walba taawashada qaarkood waa la iskaga qaadaa marka ana hadda gaalada hadda sidii nafaraan inaan suubinaa lay noqonaysaa
ma garan okay marka arrinkaasi sidee loogu kolgaari karaa oo loogu hortagi karaa cudurkan maadaama adiga ay sheegayso ilaa iyo hadda aad rabtid inaad ka hortag aad samayso balse bulshada ku dhaqan xeradan qaxootiga ee Dhagaxley sidee uga hortagi karaan marka aan may culimadeena Soomaaliyeed iyo culimadii adduunka waxay soo saareen in la akhristo 12 oo Yaasiina hal tabaarak iyo in cadeynaa la qul cabirbinas marka hadda nin walbana waxa la intuu akhristo taaliin la tufto guriga dhan ku soo shubo hana la cabo marka ana hadda quraankiina ku oradna moogi ana gaaladii hadda qaarkood hadda sida maqlay America ama kale masjidyaasha iskuuladii waxay waa la xiray ana marka waxa noqonaysa salaadii hadda lacala haduu dayax haduu madoobaado hadday qorax madoobaado waxa looga hortagaa kan ishe ilaaha lagu carra marka anaga ilaahan ku carrayna inkastoo gaaladan ilaahay ka carrayna waqtigii hadda lacala haday noqoto markay badda iyo halaag markay ay dareemaan ilaa xilligaas ay xasuustaan haddana sidii la sheegay gaaladu waxay leeyihiin masjidaha lagu carro quraan aan loo tufo anaga hadda waxaan aaminsannahay wadaadadeena soo saareen quraankaas inaan akhrisano haddana quraankaas akhrisanaynaa okay gabagabadii gunaanadka barnaamijka dadweynaha ku noqol xerada Dhagaxley maxaad ku baraarujin lahayd si ay uga hortagaan cudurkan anaga hadda ilaa hadda ma soo gaarin ana ahaanteena Kenya joogaa laakiin hadda waxa lagu sheegay caasimadeena Kenya waxaana caasimada Kenya soo gaaray waxaana lagu sheegay hadda hal ruux aad saddex ruux ay noqotay marka ani waxaan aaminsanahay ilaahay inta aynu noo soo dhaafin horta quraankan waa akhrisanaynaa dadkan dhan waxa uu furaa muslimiinta dhan ay ku meel walba ay joogaan caalamka wadaadada waxay noo soo fireen in akhrisano waxay noo soo fireen 12 Yaasiin hal tabaarig ilaa quraabinaas okay kaasi waxa mid kamid ah dhalinta xerada qaxootiga Dhagaxley ka wareysanayay xaaladaha iyo cudurkan caabuqa ee coronavirus barnaamijkan uu soo saaray Axmed Xaashi anigoo ah intaasaan idin socodsiin doono waxaan kala socoteen waa idaacadda Idaale tan iyo kulanti dambe mid aan ku kulmi doono waa bahda Idaale oo idin sida